sidaa adigu dadkaaga u xushmaynaysay baa anigana waxa waajib igu ah inaan dadkayga u xushmeeyo. SJ heesteedii baa u saaray, Puntland Geerar baa la dhahaa gabadha, boqoradii Puntland u saaray. Halla waasho gabaygii daraawiishta u saaray. Maxaan ku yidhaahdayay Puntland haddaa u saaray. marka heesta Puntland oo aan leedahay qabiila macnaa tusaale ahaan oo kale odag waa qabiiladeeyay heesta Puntland kama duwana tii Somaliland asaarisay. Somaliland anigana igama jeclid una malayn ma ina iga nacab tahay waa dad Soomaaliyeed waa faan Soomaha taariikhda daraawiish oo heesti Sooley iyo taariikhda daraawiishna waa taariikh dahabiya dadka Soomaaliyeed oo dhan baale Afrika oo dhan bay taariikhdaasi baal dahaba kaga suusan tahay. Sayidka iyo daraawiish waxay u dirirayeen reer maahayn inay maxaa ku raahday cid gaar gobonimo u keenan maahayn dadka Soomaaliyeed. Sayidka taaladiisana waa ogtahay meel Soomaali degto oo aysan saarnayn male taariikhdeed maaha. Daraawiishna deegaankaasi ahayd iyagay u badnaayeen meeshii diyaaradaha lagu duqeynayay oo Ingiriis ku duqeynayay oo xarunta daraawiish ahaydna taleex bay ahayd meel kale ma ahayn. marka taariikhdaana haddii daraawiish la soo qaado micnaheedu maaha in qabiil gaar la soo qaaday waa taariikh adigu ku faani kartid waa dhameystay. Okay haddaba waxaan kuu sheegaa intaas aad sheegtay ma ahan waxa aan kaa diiday. maxaa iga diiday marka aan hadlahay intaas hadda ma hadlay inta aad sheegtay maaha inta aniga aan kaa diiday. waxa aan kaa diidaa waxay tahay caawa dhan inta gameka aan dheelaynay intaas kaliya ma aadan samayn haddaadan ogeynna anaa ku xasuusinaya. hees waxaad noo daartay 2021 ah waxaad noo daartay hees muxuu ahay hadda ah waxyaabo badan oo caaw aad ku hadashay oo hoosgelisa jira. haddaan kuu sheegayaa daraawiish taariikhdeeda aniga aad ibarmaysid Puntland waxay tahay iyo heesaheedan ibarmaysid inaan kaa badiyo ma ahane adiga igama badisid taa waa gooni. daraawiish waa sharfan yihiin Puntlandna waa sharfan yihiin Somalilandna waa sharfan yihiin intaaba maaha hadalka meesha la aaday. haddaad hadda iska dhaqayda ma ogi hase ahaatee waxa aad samaynaysay caawa markii laga soo tago badiska wax fiican ma ahayn. neehow aniga ha iga dhigin maxay ahaayeen dhegeyso feeri dhegeyso neehow aniga ha iga dhigin hana igula ciyaarin Somaliland iyo Puntland haddaa hadalka kuu qurxiyane ha iga dhigin macnaha nin kugula ciyaarayo magaca Isaaq adna aad matalaysa magaca Daarood. hadalka haddaan barnaamij kuu soo dhigo waay nin Daarooda tahay Ilaaha kaa dhigay anna nin Soomaali ahay hawiya ahay laakiin walaalaan nahay. Soomaali waa Soomaali qaabka aad u ciyaaraysay dee waa isnaqaashiine aniga adii labano istaqaanaan nahay laakiin waxaan kuu sheegaa Daarood hawiye Isaaq raxanweyn jareer dhammaan magaca Soomaali inta ku hadasho waa walaalo. badiska aad badinayso ha ka dhigin in adiga aad ku badinayso inaad tahay macnaha nin Daarooda oo magaca Daarood iyo magaca Isaaq ha isku lifaaqin si sarbeeba isku lifaaqaysa. labadu waa walaalo game aan ciyaarno. Soomaali waa Soomaali faan anigina hawiye ah Soomaa adna soo nin Daarooda ma tii labadeena Soomaalinimada naga dhaxdo game Soomaalinimo aan ciyaarno. aniga waa necba waxaas haddaan doonane waa samay karaa ma garad laakiin waa wax aan diiday inaan ku ciyaaro magac qabiil oo waxaan diiday. hees Puntland leedahay wallahi 24 saac dhageystaa ta Somaliland waa dhageystaa hees walba Soomaali gobol loo qaado waa dhageystaa. marka waxaan ka hadlaa hadda maadaama aan kugu fahmay malab ha ismarin. hees Somaliland hadda daara kartaa hees Puntland hadda daara kartaa laakiin waxaan kaa diidaa waxay tahay inaad taariikh hore iyo waxyaabo hore aad ku laabato oo aad waa fahansan hadii tali anyway inuu ixtiraam u hayaa tahay ma doonayo inaan aad kula gogoosto waxaan kula guuleyso ma garat. okay waxa ii sheegtaa adiga waxa samaysay baan sameeyay heesta Somaliland baashiday ayo hadda waxa sameeyay asal waa adaa saxan waa may wasaxanta afkayga may wasaxanta marsay hadalka fiiri hadalku moogtahay hadalku bas Isaaq miyayga maqashay aniga fiiri hees baashiday hadda midaan kuu sheego heesta tanaa Daarood loo qaada ka wada macnaa hadda midaan kuu sheego hadda waxba maaragtay dabada dhiiqa kale la sii gelin haddana dhiiqa kuma jirtid oo anaa ku badbaadiyo kaa baxshay nin weyn baa tahay war dhiiqa la iga bixisay macda dhiiqada ku jira waa ku badbaadiyo
waa ku badbaadiyey haddaan kuu sheega oday haddaan kuu sheega haddaan kuu sheega midnaan kuu sheego aniga fiiri may wallah abuu may fiiri shiine midaan kuu sheega aniga midaan kuu sheega aniga ninaan kaa jeclaa fiiri shiine midaan kuu sheego adiga shiine culaya in aniga aan kaa jeclahay oo aan kaga ixtiraam badanahay oo aan isaga dhownahay ma jirto adi haddaa iga badido wallaahi anuu iska badiyo waay anuu badiye lamid tahay badis adi aa iga badinaysa kama xumaanayo kuwa adiga kaa hooseeya aad ka magac weyn tahay wax walba aad dheer tahay aa iga badiyo marka badiska aa iga badiyo meeqa jeer aa iga badisa ani meeqa jeer kaa badi dhegeyso badiska aad iga badida ma og tahay nin saaxiibkayaa tahay waxaan saaxiibo ku nahay waa isqadarinta waa is-ixtiraamka niman saaxiiba ah isku professional isku lajana aan isugu keen baxdo baan nahay laakiin waxaan diidayaa heesaa shiday Somaliland aan la oranayay puntland aan shiday marka there's no way taaduna ay ku tahay xadiis tayduna ay qabiil ku tahay ma garan karade adaa saxan anaa qaldan bas waa ku salaamay anaa qaldan waaya khayr ay noo qalana waa ku salaamay weeye odaygii waxaa la tuso last game weeye odaygu waa tegaya waxaa la tuso odayga waxaa la tuso last game waa kala hoyanaynaa ka horeeya aniga 170,000 ayadoo laga badinaya fadhiyay in laga badiyo is okay ma kala jecli ma fahamtay laakiin hoosgeliskan diidano ma garatay meel oo ma santa baa Thank you. Ayuba hadda wada hadlena. Okay. Dhageyso game baa wada ciyaareynay game waa taqaana feerkiisa nin baa wax ku gaday reer Somaliland way baa tiri Somaliland baa u amaantay heesti waxa u shirtay wadamada gobonimadeeda gaartay abaal gaar baa u hayaa waxa uu ku jeedisay calankii Somaliland baa u bahasantiin anigu meelan daarood ku sheegay isaguna meel u saaq ku sheegay ma jirin waa ciyaareynay dadkii faaniskiisa ahaa oo wuxuu gadayay oo hees u shiday ana dadkii faaniskayga ahaa waxay gadayay baan hees u shiday Somaliland waxa waaye daraawiishta Somaliland xornimadeeda u dirirayeen taariikhdeedana ku suntan yihiin marka game buu ahaa waa wada ciyaarnay odaygii waa kala tagnay hadda de waxaan hadal ugu sii noqdo meesha ma taalo odayga waa ismac salaameynay hadii ilaahay xukma hayo bismillah saacadki وكوبي تبانكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كوبي تبانكي وكوبي تبانكي سمع كوبي تبانكي